الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داوديال وبرنامج وعي قلنيد oo aan kaga hadli doono siyaasadda xakamaynta gudniinka gabdhaha oo ay soo qaban qaabsay dalada Nefis Network oo wacyi gelinta iyo xakamaynta siyaasadda ay ka wada shaqeeyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kulan wacan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan oo inaga qayb galayaan aan ka bilaabo dhinacayga midig Sheekh Nuur Cismaan Guuleed oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo qaafta Farduus Cismaan Cali oo ah wasaaradda caafimaadka waa doctorayso ku soo dhawaaleeyahay Aamina Xaaji Maxamuud warsame oo ah gudoomiyaha dalada Nefis Network Luul Aadan Geedi oo ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dhamaantiin ka soo qayb gal wanaagsan siyaasadda gudniinka gabdhaha waxa la bilaabay qabiy qoraalkeeda sanadkii 2011 waa siyaasadda lagu xakameyn lahaa waxa haddana dib eegis lagu sameeyay sanadkan 2016 iyagoo ay iska kaashanayaan dalada Nefis Network iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyadoo ay diyaar u tahay iyo golaha wasiiradaba ay sidii ay u ansixin lahaayeen horumarna looga sameyn lahaa loo gudbiyo su'aasheedu ugu horeysa waxay tahay siyaasaddan lagu xakameynayo gudniinka gabdhaha oo 6 sanadood qabiy qoraalkeedu uu taagnaa doorka kaga aadan dhinacyada ka soo qayb galay ee qusayso marka waxa aan ku bilaabayaa bal horta inay Luul Aadan Geedi oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay hordhac inaga siiso wada shaqaynteeda iyo doorka ay ku leeyihiin inaynu fahano runtii Nafiisa labada siyaasadda 2011 ayaa la qaaday oo ay naga caawinayso sidii loo soo saari lahaa siyaasadda qaranka ee lagu hagayo gudniinka gabdhaha dabadeed siyaasaddaasi kulli muddo qaadatay intii la ururinayay iyo intii laga qayb qaadanayay 7 wasaaradood ayaa iyaguna ku jira wasaaradda leading ama hogaaminta lahayd wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradaha nagala qayb galay waxa kamid ah wasaaradda caafimaadka wasaaradda cadaaladda wasaaradda waxbarashada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda warfaafinta 7 wasaaradood ayay wasaaradda iyadu ahayd hogaamin dadyo kala gadisan baa laga qaaday ururinteedii waa wax dibadda la inooga keenay waxa ka shaqeynayay qof ajnabi oo dibadda ka yimid qof local siyaasaddaasi dadka laga ururiyay siyaasaddaasina way kala gadisan madaxda kamida dhiijiyada kamida wasiirada kamida shaqaalaha wasaaradaha kamida dad hooyooyinka kamida abayaasha kamida waxa kamida caruurta waxbaratay iskuulada dhigata kuwa jaamacadaha dhigta kuwa bahda caafimaadka kamida bahda looyarada kamida ururada civil society loo yaqaan amba ururada localka ah ururada maxalliga inta waa laga wada qayb qaatay siyaasaddaas waxay kolba soo socotay kolba hab soo martana waxay siyaasaddaasi ma ka maraysaa in intaas oo sanadood ka bacdi dib loo eego iyadoo wacyi gelin badan aanu ka sameynay iyadoo dowlad badan iyo xilal badan ay leeyihiin wasaaraduhu iyadoo ururada maxalliga laftirkooda xil iyo door leeyihiin waliba gaar ahaan ururada haweenka iyadoo ay la gobolada bariga iyo gobolada kastaba la gaarsiiyay siyaasaddaasi si dadka looga wacyi gelin lahaa teedna siyaasaddaasi muddada inta ka dambeysay waxa dib eegis amba dib loo eegay oo la soo gaabiyay oo yara fara badnayd oo ay naga caawisay dalada Nefis Network oo uga mahad celinayno waa imaka way soo gaabisay waana dibna waa loo eegay waa la tashaday ururadii dhamaantood ahaa ka soo qayb gal hawlaha daneeyaasha hawshan dabadeedna imaka waxay maraysaa halka kulli wasaaradda awqaafta diinta marar badan baan ka wada hadalnay iyadana IHU iyo ururada daneeyaasha kale jaamacadda Geeska Afrika oo Dr. Almis joogo waan wax badan baan ka wada eegnay wax badan baan ka wada hadalnay insha Allah taala waxaan ka rajaynaynaa anaga wasaaradda diinta iyo awqaaftu aan waxaan dhibaatada jirta xooyin dumarkii bay haysataa iyo habli waqti go'aan kuma dhamaanayso bahda caafimaadku way cadaysay dhibta ay leedahay dhakhaatiirta iyo dhamaan bahda caafimaadka oo dhan markaad isku wada darto way sheegeen waxyeeladeeda dhibaatada koobaad ee jirtana waa waxyeelada ay leedahay ka bilaabaysa inanta xilliga markay yar tahay ilaa markay gabowdo islaan noqoto aanay dhibti ka hadhaynin taa marka waxaan jeclahay aniga wasaaradda awqaafta diinta markaan wax meel isla dhigno isla eegno maslaxadda ummadayada isla eegno inaanu dhinac uga soo wada jeesan doono oo mowqif kaliya ku midaysnaan doono insha Allah taala waxay ahayd siyaasaddan oo 6 sano qabiy qoraalkeedu soo taxnaa
sidii horumar looga sameyn lahaa door intee leeg ayaad ku leedihiin dhamaystirkeeda horta waxa weeyeen danaheena inaan ka tashano oo isweydiino mashkaladani oo wax muddo badan ina soo haysa walxamdulillah haddii dadkii iyo caalamkii iyo ciddii kale aan ka koobnaynba aan wada garanay waxaan inay aan u hagaagsanahay macnaha waa siyaasadda gudniinka haddaan u imaado siyaasaddu waxa weeyin waa shayga siyaasadda la yidhaha lama geeya baarlamanka siyaasadda golaha wasiirada xukuumaddii markaa joogtaa ansixisa taabaa laga shaqeeyaa sharciguna halkaabuu ka dhashaa oo laga sameeya kaabaa la geeyaa baarlamanka marka haddaan u soo noqdo arrinkani muddo badan wuu socday waxaan malayn dad badan waa la fahmay inuu tallaabo laga qaado shaygu kolkuu muddo badan ballaadhay uu wacyigelintiisii ay god kasta iyo xaafad kastiba gaadhay waxaa imika u baahan yahay in la ururiyo oo dee ficil loo bedelo wixii hadalka ah diyaar baanan u nahay wixii aan ku leenahay inaan annagu ka guda bismillaahi raxmaani raxiim waan idin salaamay dhammaantiin waxa weeye horta annagu haddaanu nahay dalladii nafis oo ay hoos imanayeen ururadii arrimahan waxa ka shaqeeya dad badan oo maxay tahay ururada bulshada laakiin annaguna si khaasa ayaanu mawduuca u danayna marka annagu kollinba siyaasaddan waxay yidhahdeen meel doonaya inaan u guuro ayaa roob iigu da-ay dadku yidhahdaan annaga wax allaale iyo wixii bartilmaameedka iyaga ama ujeedada iyadaa dambe wax taageeraya waxaanu noqonaynaa inaanu iyagana taageero oo waxayse soo gelaya danihii aanu ka shaqaynayeen iyo danihii wasaaradda iyo wasaaraduhu wadeen marka waan ku raacsanay wasiir ku-xigeenka waxa weeye way yar kala duwan yihiin siyaasadda iyo dee wax sharci ah oo sharciga dee waxa weeye waa la fulinaya waa la dabageliyaa tan waxa weeyaan arrin baa la ogaanaya inay dhib tahay ama arrin baa la doonaya in horumar laga gaadho marka waxa weeye waxa ku jira xataa tallaabooyinkii lagu gaadhi lahaa meel baa waxaa la dhiganayaa maxay haytay bartilmaameedkaa sidii lagu gaadhi lahaa ayaa qorshe hawleed xataa loo sameynaya marka annagu mar walba wax allaaliya wixii halkaa ku dhaweynaya maxay tahay waanu taageeraynaa waana wixii dee aanu u taagnay weeyaan runtiina waxa weeye iyadoo ay jirto in siyaasaduhu waqti qaataan oo ay dee tahay sunnaheeda oo maaha wax yaroo inta degdeg loo sameeyo document lasoo dhigo maaha waa document laga baaraan dego waqti qaataa waa process wax soconaya doorka kaga aadan sidii horumar looga sameyn lahaa bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsantahay nafisa ka shaqaale caafimaad ahaan ka wasaarad caafimaad ahaan annagoo oo tixgelinayna ixtiraamayna global initiative-ka waxa la yidhaahdo iyo adduunku halku u socdo annagoo marjaca caafimaadka marka la eego meesha loogu noqdo caafimaad waa WHO annagoo ka duulayna qeexidda ay siisay waxaan la yidhaahdo FGM-ka amaba gudniinka hablaha markay qeexeen laba wax oo muhiim ah ayay naga khuseeyeen labada wax ee muhiimka ah wasaarad ahaan aan ka duulayno waxa kow ah in waxaan yahay kow wax ah ku tacaddi ama xadgudub xuquuqdii qofka dumar lahayd in lagu xadgudbayo oo iyadoo wax sababahoo caafimaad aan lahaynin in qalliin lagu sameynay taas waa midda labaad ee wasaarad caafimaad ahaan aanu aaminsanahay waxa weeye in sharciga caafimaadka ama sharciga qofka shaqaalaha caafimaadku ma farayo waxa la yiraahdo ethics ama principles of ethics ama anshaxa shaqaalaha caafimaadka ma dhigayo in uu qof bini aadan oo caafimaad qaba uu bedelo qof xanuunsanaya marka waxaan xidhay horta marka ugu horeysa shaqaalaha caafimaad ahaan anshaxa shaqaalaha caafimaadka waxa bariyahan dambe soo baxaysay ama xogihii ugu dambeeyay la ogaanayay in shaqaalaha caafimaadka laftigooda la yiraahdo way sameeyaan haddii loo noqdo anshaxaas loona helo siyaasad cad oo ku wajahan FGM-ka ama gudniinka hablaha waxaan rajaynaynaa in isbedel weyn dhici doono waxaan rajaynaynaa siyaasadan markaan u eegno dhibaatada dhinac socota
ee haysata dumarka afrikaanka ma aha Soomaali oo kaliya ma haysato waa dumarka afrikaanka oo dhan bay haysataa wadamo badan oo Afrikaan ahayn bay haysataa xataa iminka waxa la marayaa in aynu inagu yacniga gudniinkii dhoofino oo dadkii reer Yurub ee caafimaadka qabay xataa waxa laga helayaa cases inta halkan lagu sameeyay xagga la tagayo dabadeedna hadhowta la oranayo maxay haytay maxkamada qaar lagu saaro marka wasaaradda caafimaad ahaan shaqaale caafimaad ahaan waxaana xidhaya annaga anshaxa shaqaalaha caafimaadku ha u bedelin xubin caafimaad qabta xubin bugta ama xanuunsanaysa adigoon ku salaynin wax medical caafimaad wax ku salaysan ahayn taas wayna xidhaysaa talabaadna xadgudub human right ka ama xuquuqdii asaasigeeda gabadhu lahayd inaanu ku xadgudubno magacaygu ah Amuun Aadan Ismaaciil kana tirsan bahweynta ka shaqeysa barnaamijkan aynu maanta kaga hadlaynay meeshan ee gudniinka hablaha iyo dhibaatooyinka hablaha loo geysto marka kana mid ahay dabcan dadka aad iyo aad ugu faraha dhaadheer leh muddo xoogaa ka shaqeynayay kala soo shaqeeyay bulshooyin kala duwan kala soo shaqeeyay runtii waxaan doonayaa maanta inaan kaga yar dhawaajiyo dhibaatooyinka hablaha khaasatan kasoo gaadha psychosocial effect-ka waxa la yiraahdo ama dhibaatooyinka maskaxiyan iyo bulsho ee gudniinka hablaha kasoo gaadha runtii gudniinka hablaha dhibaatooyinka psychosocial effect-ka ma soo koobi karno laakiin bal waxaynu ka taabsan doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin in inantu marka ay lagu sameeyo ee la xidhiidho ee la dhibaateeyo ay ka baqdo inay guursato taasoo runtii ah wax caama oo dabcan la soo taabsaday oo run ahaantii ah dhibaato bulshada haysata khaasatan hablaha yar yar oo ka baqdaba inantii inay guursato dhibaatada labaad oo ah inantii had iyo jeer inay stress ama depression haysato ta kale waxaa jirta in inantii markay maxaa la yiraahdaa waxbarashada ku jirto kale iskuulkii inantii markay iyadoo waxaad arkaysaa inantii oo wanka u qaadi jirtay galaaska oo aad iyo aad u firfircooneyd marka dambe inantii la gudo ay ku dhacdo dib u dhac aad u weyn inantii haddaan iskuulkiiba ka tegin ay ka mid noqoto dadka had iyo jeer la yiraahdo admin base had iyo jeer gadaalka fariista galaaska oo inantii wanka geli jirtay lagaba waayaba saaxadii oo positionkii ay inan ku haysatay matalan kale had iyo jeer inanka wanka ka qaadi jirtay inankii wankii galo oo xaqa inantii waxbarashadeedii ama levelka waxbarashadeedu hoos u dhaco amaba ay maxaa la yiraahdaa inantiiba ay ka noqoto inay waxbarashadiiba ka tagto ay guri joogis ka noqoto taasi waa qaybtii inanta adaynu u soo daadegno inantu markay guursato psychosocial effect ay ka soo gaadha run ahaantii beri dhaweyd oo la shaqeynayay tuulooyin ayaa waxay sheegeen dhibaato xaqiiqa oo jirto oo dhacday oo ay la wadaageen dadkaasi bulshadaasi waxaana kamid ahaa in gabadh beri ay guursatay kadib inantii markii ay guursatay ay ninkeedii ma sha Allah xoogaa ay isku deereer ahaayeen inankii inantii had iyo jeer kala soo cawdaan inantiina dhibta ma sheego inankiina dhibta ma sheego waxa jirta markaa dhibtii u weyneed waxa ay inantiina ka baqday inay saygeedii oori u noqoto odaygii inankiina uu sheegi waayay inuu gabadhiisan ay mushkilad jirto oo halkan ay diidan tahay marka muddo markii inantii kolle ay diidayeen inay kala tagaan haddana ay wada joogi laayihiin oo dee mushkiladii calaaqadba meeshii aanay jirin ayaa waxa dhacday markii dambe in inankii uu odayaal la fariistay oo odayaal u sheegay kadib dhibaatadii markuu odayaasha u sheegay dee dhibaatadii inantii lala wadaagay la yidhi inantii dee wax iska bedel inantii waxaa haysta stresskani soo sheegnay yaraantii inantii markii hore ka baqanaysa inay guursato laga yaabaa inay inantaasi maan sii wareysane inantii reerku ay ku dareenba oo ay dhacday inay inantu reerku ay ku daraan odayga inanka kadib inantii markii lagu daray iyadoo markii horeba guur ka baqanaysay dee odaygiina uu hor yimid ay diiday inay calaaqad samayso dee reerkiina reer ma sii jirayo marka run wada hadallo marka inantii markii lagu noqday la yidhi inantii dee odaygaagii dee iska yeel ay inantii diiday ay ku adkaysatay meesheedii waxaa dhacday muddo kadib dee inay xaggii divorce u dhaco ama kala tag oo reerkii burburo magacaygu waa Raaqi Yuusuf Ibraahim waxaan ahay agaasimaha waaxda cabashooyinka iyo adeegga sharciga komishanka xuquuqul insaanka qaranka kulleen mawduucan waxa laga hadlayay in badan baa laga soo hadlayay in badanna waa la iga soo horeeyay waxa laga hadlayay dhibaatooyinka gudniinka uu geysto gabdhaha waxa laga soo hadlay maxaan ku raday siyaasadda oo ah maanta ta muhiimka ay tahay aynu halkan u fadhinay ay ahayd inaynu ka hadalno siyaasadda gudniinka gabdhaha maxaa hortaagan maxaa sababahaas oo dhan laga soo hadlay bal haddaba anigu point-ka la siiyay ee laygu yiri ka hadal waxa uu noqday mid ah dhaqaale ahaan marka gabadhii lagu sameeyo
waxaan maxaa dhaqaale intee leeg baa ka baxaya dhaqaalahan isa goormuu bilaabmaa dhaqaalahan waxa uu bilaabaa maalinta inanta yar la gudayo waxa islaanta loogu yeerayo ama qofka loogu yeerayo number 1 lacag bay qaadataa dhaqaalaha maalinta bilaabmay waa dhaqaale maalinta ay dhimanayso la soconaya waxa weeyaan waad aragteen farmasiyada ama cusbitaalada waxa inta ugu badan waxa la yiraahdaa dumarkii maxaa ku dhacay maxay dumarku dhakhtar walba ay ka buuxiyay iyaga uun horta dhiga waxa weeyaan dhib ka soo gaadhay maalintii lagu sameeyay gudniinkan waxa weeyaan waxaad arkaysaa islaansiga 5 jira iyo inayro 20 jira oo si u wada dhibtii ay u wada hayso joogana dhakhtarkii waxay isweydiiyaan adigu waad yartahay maxaa kugu dhacay aniga dhibtaas markii hore ay soo gaadho igu keentay problem kane adigu imika maxaa kugu sababay aniga laftigaygu hawshaas uma u socdaayo taas la igu sameeyay infection baa kamida waxyaalaha inta badan dumarku infection baa ku dhacay baa la yiraahdaa dhibtaas soo gaadhay dhaqaale intee leeg baa ku baxa waxa laga yaabaa bil kasta inay dhakhtar la kulanto waxa dhacda qaarkood in lagu yiraahdo marka heerka ugu dambeeyay gaadhay inaan dalkaba wax laga qaban karo dhakhtarada dibadeed ay u baxaan dhaqaale intee leeg bay ka qaadanaysaa marka gabadhii ay ugu baxday dibada ay ku aaday inay dhakhtar ugu tagto xanuunadii iyo dhibtii ka soo hadlaysay dhakhtarad bay nala joogto si fiican bay noogu faahfaahsay dhammaan xanuunada ay ka soo hadashay mid waliba wuxuu u baahan yahay dhaqaale haday dhiig baxdo irbada lagu mudayaa ay ku dhiig baxaysaa waa lacag bay ku xirantay ma karayaa qofkii xitaa ku haystay ka warankii magaalada joogay irbadii dhiig baxday inantii reed ku dhiig baxdo maxaan ku raahday helayay dhaqaalihii soo iibsan karay ama afaalay balba ay u ahayd ba farmasi ama meel uu irbadii uga soo iibsadaa inuu helay soo iibsaday kuba sameeyay qaaraan iyagu wax xitaa jirta aan heliba karin oo maxaan ku raahday lacagtoodii aanay uga goynahayn ka fog meel cusbitaal ku yaalo kadibna xaaladda kala kulmi karta waynu garanaynaa dad inta dhimasha kala kulmi karta dhib badan baa kala kulmi karta hadaba waxa muhiim ah maadaama oo aynu ka hadalay inuu leeyahay dhaqaale burbur oo number 1 tahay dhibaatadiisu uu leeyahay iyo dhaqaaluhu inay isla socdaan markastoo cid dib ku ay gaadho hadii aan dhaqaale lagu safe gareyn qofkii ma safe garoobay waxa weeyaan dhaqaalaha maalintii inanta yar la bilaabay gudniinka laga bilaabay islaantii loogu yeeray lacagta qaadatay baa ah mid ay ilaa daba socon doonto intay ka galayso xabaasha maalintay maxaan ku raahdaa hadii ay fooshi ku adkaato qalin baa loo sameeyaa waxa la qalinka waxa ku kalifay yani halkaas hawshaas dhacdayo yani wixii ilmihii baa meeshii uu soo mari waayay dhib baa ku dhintay dhibtaas qalin weyn baa ku noqdo ilmihii laga soo saaro ilmahaas maxaan ku raahdaa dhakhtarkii iyo meeshii laga qaaday dawa lagu sameeynaya dhakhtarkii dhaqaala ku baxaya waxa laga yaabaa 7 dhakhtarkii ku jirto inay ka badsato infection qaaday bogsan buu weydo bila ku qaadataa dhici karta oo ay dhakhtarkii ku sii jirto ay qofkii bogsan buu weydo oo muddo qaadato oo muddada ay qaadatayna mar walba dhaqaala ku socdo marka waxaan ku soo koobayaa oo inu caawa halkan u fadhinay siyaasadda ay ahayd siyaasadii laga lahaa maxaan ku raahday gudniinka siyaasaddaas maadaama aynu dhinacyo badan ka eegnay oo aynu ka eegnay maxaan ku raahday dibteedii oo aynu isla wada dareensanay dhaqaale ahaan lana wada dareensan yahay waxa weeyaan ciddii ay mas-uuliyadeedu saarayd iyo ciddii in laga wada shaqeeyo uma malaynaya in cid kaliya mas-uuliyaddu saarantay guriga kuwa joogay kuwa siyaasadda ku jiray iyo kuwa kasta oo ka shaqeeyay bulshada kamid ah qaybaha dhammaan kala duwan waxay saaran tahay waa waajib saaran waxa weeyaan sidii ay wax looga qaban lahaa waxna looga bedeli lahaa baynu hadda diyaar u nahay maadaama aynu muddo badan ka soo hadlaynay aynu soo wadnay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markiiba lagu sameeyo kow inanta baqdin baa ku dhacda way mararka qaar way suuxdaa way shoog baa ku dhaca xanuun aad fara badan bay la kulantaa dhiig bax bay la kulantaa kaadida ku istaagta mararka qaar iyadoo isla kaadi bay hadana ka jikeen weyda maxaa yeelay meesha xiranta infectionna dhaca iyo caabuqyo aad u daran baa dhaca mararka qaar baqdinta iyo waxaas iyo xanuunka markay kaashadaan waxa dhimasho ayaa degdeg u dhacda taa marka laga yimaado waxa dhacda hadana waqti yar dabadeed meeshii way barartaa dhiig bax baa iska iman kara kaadidii sidii bay u dhibtaa mararka qaarna hadana waxa dhici kara in infection kan maxay haytay intan macdantoo dhan inay xanuunto inay gabadhii aan hadhowto caadadii ay dhibaato ku noqoto mararka qaarna waxa dhacda inta badan wax la yiraahdo fiixo ka soo baxa cawrada xaggeeda dabada u soo baxa iyo kuwa gudaha ugu noqda nafaqa darra dhacda maxaa yeelay inanta waxa la siinayaa bariis yar oo cad waxa laga ilaalinayaa biyihii waxa laga ilaalinayaa wixii nafaqada lahaa maadaama ay siyaasadan la doonayo in horumar laga sameeyo 6 sanadood qabiil qoraalkeedu uu taagnaa waa maxay caqabadaha hortaagan
inay horumar laga gaadho dhammaantiin markaa su-aashaas weydiinta allaa sidii qof kastaaba aragtida u arko wax jiraan dee caqabadana way ka hor iman karayaan dee waxa weeyaan imika waaba laga wada hadlaya waaba laga wada doodaya ilaa madax ilaa shuyuuq ilaa cid walba xilliga aan lagaba hadli jirin waxa ahayd wax dee la isku ceebsado taabuya ayaa jirtay waxa weeyaan caqabadaha koobaad waxa weeyaan horta dadka waxaan sameeya intooda badani waxa weeyaan waa hooyooyinka iyo ayeeyooyinka iyo bulshadeena waxay u arkaan raggina inay wax dumarku u go'ayo inanta inay hooyadu ka mas'uul tahay oo kale inkastoo dee ilaahay mas'uuliyad ka saaray ninkaba kaxweyn caqabadaha bulshadii oo nala bislaanin waa caqabad dadku haddaanay wax nala qaadanna izi wixii si fudud ugama dhaafi karno bulshadeennii waa in la wacyigeliyaa waa in wixii lagu dhiirigeliyaa waa in la tusaa dhibaatooyinka uu leeyahay oo aynu dadkii orientation iyo education loo akhriyaa oo dadkii la fahansiiyaa waxani maxay dhib leedahay maxaa looga hadlayaa gudniinka gabdhaha maxaa hablaha gudniinkooda looga hadlayaa maxaa keenay dhibaatadan maxaa keenay in laga hadlo waxaweye dhibaatadan waxaa keenay in laga hadlo waa dhibtii waxa weeye dadkii hooyooyinkii waynu ogno iyo ayeeyooyinka intooda badan waxma baranin inkastoo imika hadda aad moodo inay dee dadkan dambe ay aada wax u barteen dabadeedna hooyadu waxay u haysataaba waxaan inuu yahay wax diiniyana intaasoo sanadood wax lagu soo dhaqmeeyey ay ahayd intaasoo sanadood inaynu ognahay caadadan in fircoon laga keenay haddana hooyadu waxay haysaa waxaan inuu nooc diinta ka yimi ah yahay isagoon diintii ka iman because marka muddo badan dadka ay sanado badan kusoo dhaqmeeyeen waxaan ay sanado badan soo qabatibeen waxay u haystaan wax diina isagoon diin ahayn waxay u baahan yihiin hooyadii la wacyigeliyo in dhalinyaradii la wacyigeliyo islaanta laftirkeedu samaynaysaa waxay u gashay meeshan inay ka hesho dhaqaale iyada laftirkeedu in la wacyigeliyo waxaan inuu dembi jariimad xagga ilaahay oo ka gelayso qofkan bini'aadanka inay tahay in laga wacyigeliyaa loo baahan yahay oo ay u bislaatay in iyadu waxaan iskeed u joojiso asi voluntary markay aaminsanaato si mutadawacnimo ah inay u ogaato inay waxaan joojiso bulshadina inala fahanto bulshadeennana ay nala bislaato ay nala ogaadaan waxaan dhibta taag waa caqabada koowaad ee tahay laftarkeeda dadkan governmental willing waa inuu jiraa dadkan madaxda dawladda laftarkooda waa inay nala qaataan waxaan dhibaato qaran aafa qaran tahay oo hableheeni haysata oo loo wada bisoo dhakhaatiirtii culimadii dadka wixii aynu dadkan u fara dhuudhuubanee ka shaqaynaya howlaheen 6 sanadood qabiil qoraalkeedii uu taagnaa waa maxay caqabadaha hortaagan inay horumar laga gaadho kala gelinayaa nin aan iska hagaagsanayno waxaan aan qiimeynteedii iyo waxaaba ku fadhiyin baa oranaya waa hay'ado wax waday hay'adi ha wadaane hay'adu waxay waday ma saxba mise ma qalad ba oran maay hay'ada gaalada wado oo gaalada ba dan kale kalaho iyada ina hawsha inagu wado taaba laga dhigayaa sabab oo amba waxaan hagaagsanay taana de waxa weeyeen gaal amba ha ku wado amba nin kale ha ku wado waxa la waday ma wanaagsan yahay waa asalku waxa weeyeen waxaan muxuu yahay ma wanaagsan yahay soo qalday haduu wanaagsan yahay doo wanaagsan yahay haduu qaldan yahay halku ka qaldan yahay soo qaldan yahay ma la sixi karaa ma la sixi karayo waa la tuuraya labada mid dadku kolka shay ay ka tashadaan laakiin anigu mashkalad imika de muuqato oo aan ilaaho halkaaba ay waxay naga imanaysaa anigu ima muuqato hadba sidii dadaalka aan gelino loo wada baan u malaynayaa inay hawshana ku dhamaanayso aniga sidaaba ay la tahay siyaasadan waxaan hortaagan waynu ognahay mashaakilada jiriyo mujtamaciye siyaasaddu waxa weeye waa tii lagu hagayay ee inoo saamaxaysay inaanu qofka kubadda dhinacu doono kaga dhufane wax ina hagayaa jirto oo xataa fariinaha la gudbinayo la isla ogiyay oo la soo ururiyay arintanu aad bay u facweynta waana dhib badan tahay marka inagu siyaasadda carqaladaha hortaagan ee inaka oo dhibtii og haddana waxaan ay siyaasadii halkan u dhaafi weyday baan anigu su-aasha saasaan anigu dee su-aasha waayo mushkiladan iyo dadku waxay aaminsan yihiin iyo maxay tahay dumar wuu wada laakiin waxaan aaminsanahay dumarku ragga wada dee hooyadu og tahay inanteeda way baqaysaa is leedahay ilaa lagu soo celi waxba ma sameeyeen baan qabaa horta way ku wada jiraan rag iyo dumarba iyagu ha wadaan oo ha ugu yeedhaan gabadhiyo waxaa laakiin waxa weeye hadday raggu aanay ku jirin mabay sameeyeen baan qabaa tan haddaanu imaado anagu muddo imika intan nafis joogiyo in horeba waa kusoo jiray arintan halka ay sartu ka qoruntay anigu mid baanu arkaa waxa weeye arrinkii gudniinkoo la og yahay diin baa salka loo saaray
diin baa lagu ladhay waayo dadkan xataa caadiga ah ee sameynaya qaar baa weli u haysta waxaan magarata diin marka arrin diini gashana ee salkii ku qabatana waa in dee waxay u baahan tahay iyaduna istiraatiijigeed iyo sidii looga furfuri lahaa arrintan imika ay dadku sheegayaan ay leeyihiin siyaasadda xataa arrinta in laga wada tago waxan lugta waxay ku haysaa waxa la leeyahay laga wada tago wada tagii baa la leeyahay dee lama wada tagi karo oo waxa weeye sunna arrintan inagoo waxa loogu gabanayo waxay sunnaha ku sheegayaan inay xoog u kala durugsan yihiin oo waxaan afka laga leeyahay waa sunna weyn dadka u warhaya way ogyihiin dhibtu waa halkii anigu waxaaban qabaa dadkan diinta dee inooga mas-uulkii waxaaba ku filaan lahayd arrin haddii la leeyahay waxaan waa khasab oo waa waajib oo waa in gabadhan lagu sameeya dee waa macno kale laakiin mar haddiiba la og yahay in wixii lagana tegi karo lana samayn karo haddii la samaynayana wax dhibaato aan qofkii loo geysan taasaaba ayaaba sabab laga dhigan lahaa la odhan lahaa waxa la go-aansaday mar haddii wixii loogu gabaday mar hadday dhibta taagan aynu fahansanay waa inaynu dadka ka fujirnaa marka carqalada anigu ugu badanaan arkaa waxa weeye waxa la diin baas ayaa la dhexgeliyay taasaana siyaasaddaas beri horaa la kaxayn lahaa taasay salka ku haysaaban qabaa anigu laba dhibaato ayay taabteen madaxda sharafta leh kasoo qayb gashay barnaamijkan inay ka doodaan amba ka hadlaan falanqeeyaan dhibaatada hablaha haysata iyo ta siyaasadan qabyo qoraalka sidii horumar looga gaari lahaa caqabada iyadana hortaagan iminka tala ahaan guntiga gabagabadii maxaa taliyo tusaale ay kusoo jeedinaysaan sidii horumar loo sameeyo alxamdulilah waxa weeyeen horta arrimihii danaheenaan dee ka tashanay waa arrinkuna arrin fudud maahina waa arrin culus oo muddo badan ina soo haysta anigu waxaan ku dari lahaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada u sheegi lahaa luul u sheegi lahaa iminka iyada igala joogta siyaasadan la sameeyey ee la hayo inaad wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay horta ka wada hadlaan meel isla dhigaan waa kow kolka aan meel isla dhigaan labadaa wasaaradood intaan meel kale la geyn golo wasiirra aan la geyn loo yeedho kuwii kale ee ka tirsanaa hadday caafimaad tahay hadday hibil tahay iyagana loo bandhigo kolkaa innaga oo dhanna golaha wasiirada sidaa lagu geeyo inagoo heshiis ku ah oo soo tafatiro soo hagaajino wixii dadku qaba ee wanaagsan aan u aragnay geeyaan golaha wasiirada inay sidaa ku geeyo inagu inteenan wax wada fahansan iyo culimadeena isla fahanay dhaqaatiirteen shadii kale aan aqoonta lahayna weynaynu wax ka bedelnaa society kale bulshadana inay wax ka bedelno iyaga laftirkooda la educate garayo la baro wax oo siyaasaddu istiraatiijiyada iyo hababka ay xambaarsan tahay la adeegsada oo maalmi iyo magaalaba laga wacyi-geliya oo hawlihii wasaaradihii mainstream gareeyaano ku wada daraan tii caafimaadku ku dartaa tii beeri ku dartaa tii waxbarashadii habli laga wacyi-geliyo horta waa la dhameeyo waan dee anigu baa hadhay un looma hadlaa la yidhi imika maanta maalin ka yidi caawun baan yidi diilo awal had iyo jeer doodo waxay ahayn dhibta iyo waxaan iyo maxaa loo joojiyo ma loo baahanyo adoo qalbiga ku xanuunayo oo 1983gii markii aan arrinta bilaabay laga hadli jiray maantana ay taagantahay qalbigu ay xanuuni jiray maalintaa wixii laga hadli jiray maanta laakiin maanta waxa weeye siyaasadii maalinta siyaasadda ay la hirgeliyo wax allaale wixii bulshada haday nafis tahay haday qolooyinka kale ka shaqeeya haday caafimaad tahay waxa weeye way ku dhan yihiin hawl kale oo maanta taala ma jirto marka dhowr meelood yaniga waa dhinacay ka baxdaa waa bakayla qaleen baa la oran jiray aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya kasoo qaybgalka fikirka macluumaadka aynu isweydaarsanay iyo wacyigelinta bulshadeena sidii loo ansixin lahaa siyaasadaas iyo sidii horumar looga sameyn lahaa dhammaantii waa mahadsantihiin intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu